السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا دمان كسوق قبلاياشا مدشان قروح بدن ugu horeeyay madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland golaha wasiirada xildhibaanada golaha shacabka iyo ka soo qaybgalayaasha kale waan ku salaamayo mid kasta masabkiisa iyo magaca meesha ku joogo inta kadib waxaan rabaa inaan wax yar oo boobsiis ah maadaama waqtigu aad u yar yahay aan ka iraahdo adeeg cusub oo aan maanta halka ku daafurayno ah Wafi Digital Mastercards adeega Wafi oo wada garanayno ah adeeg all in one ah oo qofku ka isticmaali karo dhammaan adeegyadiisa sida bangiga sahalka callka chatting wixii oo dhan isugu jira ayaa waxa lagu soo daray inuu misna digital Mastercard ka isticmaali karo dhexdiisa isagoo virtual ah iyo isagoo physical labadaba adeegaas wuxuu xiriir la leeyahay oo integrated ku yahay adeega caalamiga ah ee Mastercard waxay ku u sahlaysaa inuu adeegeena Wafi Mastercard ku la xiriiri karo dhammaan cards-ka adduunka jira oo qofku ku isticmaali karo meel kasta uu tago ku isticmaali karo adeega Mastercard wuxuu ka kooban yahay laba nooc mid waa virtual oo qofku intuu ka dhex sameesto Wafigiisa uu ku haysan karo mobilkiisa hadii uu baahdana uu dalban karo inuu ka dhigto physical oo xarunta ugu dhow ee shirkadda Golisleeda ka qaadan karo ama Salam Bank labadaas qaybood buu ka kooban yahay wuxuu lacag kaga shuban karaa akoonkiisa Salam Bank iyo lambarkiisa sahalka lacagta ugu jirta lacagtii sahalka kuugu jirtay ee awal localka ku ahayd ayaa waxa hadda ku isticmaali karaysaa inaad caalamka ATM-yada yaala iyo BOS-yada yaala meel kasta aad wax kaga iibsan kartid waliba wuxuu dheer yahay adeegyada kale ee kaadhadhka adeegana waa tap and go qofku inuu kaadhkiisa soo taabsiyo dhaqaajiyo wax biinka marka hore uu sadgareysanaya wixii soo dhan buu dhameystiranayaa xogtiisu buuxinayaa laakiin tap and go waa contactless way inaan waxba la istaabsiin halka laga dhaqaajiyo isagoo mobilka kuugu jira iyo isagoo physical labadaba wuxuu kale leeyahay inaad ATM-yadii kala bixi kartid caalamka lacagtaad kala bixi kartid sidoo kale isagoo tap and go ah iyo isagoo kaadhka hadda seetida gali kartid kaadhka laftiisu sahlayo tap and go-ga uu leeyahay kaadhkan qofku markuu codsanayo wuxuu ka dhex codsanayaa adeegiisa Wafi marka Wafiga uu galo waxa uu soo baxaysa meel uu ku qoran tahay request card digital Mastercard ay ku qoran tahay marka uu codsado magaciisu galanaya xogtiisa dhameystiran baa laga buuxinayaa marka uu xogtiisa geliyo ayaa waxa uu sahlanaanaysa inuu kaadhka u soo baxo way ku jirtaa kul registration qaabka loo sameeyo farqiga uu dheer yahay kaadhadhka kale maxay yihiin boqolkiiba 90 waa self managed qofku isaga manage gareysanaya isaga dalbanaya isaga sameysanaya isaga xogtiisa buuxsanaya wuxuu dhan soo ku shubanaya waa prepaid oo maaha debit card maaha waa prepaid card waa tap and go contactless payment way waa feature-da adduunka hadda ugu dambeeyo isagoo la isticmaalayo NFC waana digital card oo digital card-ku wuxuu kaga duwan yahay kii hore awal laf buu ahaa intaad bangi ka dalbatid in laftii lagu soo siiyo buu kaliya ku koobnaa kan laakiin inaad ka dalbatid mobilkaaga dhexdiisa kuna isticmaali kartid mobilkaaga dhexdiisa soo kaadhkii mobilkaaga kuugu jira meel kasta wax ka iibsan kartid waana kaadhkii ugu horeeyo digital ah ee laga hirgeliyo gobolkeen ama Soomaaliya qaababka iyo wadooyinka uu maro waa soo koobaya qofku inuu codsado marka hore oo request sameeyo inuu confirm gareeyo confirmation uu bixiyo inuu isagu leeyahay qofkii dalbanaya yahay wuxuuna ku confirm garanaya kulay qofku markuu Wafiga leeyahay pin buu leeyahay ama bangiga haato ama sahal haato pinkiisu ku confirm garanaya markaas kadib ayuu u shaqeynayaa kaadhkan wuxuu leeyahay dhowr qaab oo loo manage gareeyo inuu lacagtiisa qofku ku top up sameyn karo oo Salam Banki ama kaadhkiisa sahalkiisa kaga shuban karo inuu kaadhkiisa disable gareyn karo xilliga uu baahdo temporary disable inuu gelin karo iyo permanent disable labadaba inuu gelin karo inuu pinka bedelan karo xogta ugu qoran lafteeda inuu bedeli karo hadduu u baahdo inuu xogtiisa arkana uu ka arki karo halka isha yar ee xogta kaadh ku qoran tahay serial numberkiisu soo qoran yahay wuxuu kale feature ku leeyahay waxa weeye kaaga digitalka ee kuugu jira mobilka ee virtualka ah serial numberka uu leeyahay iyo kan physicalka waa isku serial number waa hal card ba isagoo digital ah iyo isagoo physical labadiiba seetaa waa featureska dheeriga uu leeyahay
adeegan waa adeeg flexible ah oo runtii aad u sahlan ana rajaynayo in dadka hadda waafi ugu jiro dhan ay hadda dalban karaan oo open u ah waxaan rabaa in wax yar oo demonstration sameeyo adeegan wuxuu la xiriiraa hadda aad waliba loogu isticmaalaa adeega POS waxaan rajaynayaa inaan tijaabo yar oo card international ku shaqeynaya aan halkayda ka tusno soo lagu tijaabinayo okay wax nagu yeersa maanta golis xaaladeed waxa weeye waa inta soo inta ama digital u haysta ama physical u haysta maamadaas okay gabadhaas aan dooranaa Faadumo madaxweynuhu ma haysta ma sha Allah Faadumo soo dhow madaxweynuhu oo haysta madaxweynaha ma ficlaan lahayn ama supermarket ha ahaato inuu lacagtiisa soo kugu soo taagto kadibna kaarkaaga saartid soo contactless ah oo lacagta ka goosto kaarkaad waa kaar international ay seeto maamadu insha Allah taala kusoo dhawaad ama hadda lacagteeda igala baxdaan waxaan tijaabinaynaa POS kan waxa iska leh macmiil kamid ah macaamiisha shirkadda ayaa iska leh waxa ugu jira emergency-giisii waxaan tijaabin doonaa Mastercard-kaas oo international ah buu ku adeegan doontaa Faadumo marka lacagta lagu leeyahay Faadumo oo ay wax ku iibsatay waa ku soo taagaynaa Mastercard-keeda ay saaraysaa automatically waxa ka go'i doona lacagta marka waxaad ka hadal lacagteeda hadday maqan tahay waa xiraynaa intee baa soo baxaysaa inta ma sha Allah iska qad waa bashaqeeyay wuxuu taabacayaa printer automatically waa ka lacagtii uu daabacayaa transaction waa dhacay receipt-kii waa u daabacanay marka maxay waxa weeye maanta wixii ka dambeeya POS-yadan magaalada meheradaha oo dhan baa la geyn doonaa marka saas ku shaqeyntaa kaarkaygii inaan garow kaga internationalka aan kaga waxaysanayo aan kaga adeeganayo marka waxaan idin leeyahay waa hormarnay oo waan ka hormarnay yani adduunyadii baanu kala tartanay inaanu kaararka internationalka ahaa aan magaalooyinkeena wax kaga iibsano ilaahay waxaan ka rajaynayaa insha Allah ma sha Allah aan la isticmaalayn Mastercard-ka oo la isticmaalayo mobilka digitalka ah baan tijaabin doonaa isagana waafi digital card baa igu jira oo physical ah wax kaara ma aan wato halkaas waxa igu jira Mastercard-keygii oo farjiwaala halka igu jira POS-ka saa u saaraya waa dhaqaaqaya hore ka goosanaya lacagta isagana halkaan ka soo taagaynaa mobilku waa ka automatically transaction waa dhacay receipt-kan uu daabacaya automatically transaction waa dhacay lacagtana waa goday receipt-kan haduu daabacaya marka waa tab and go iyo soo digital shirkadaha ganacsiga inay POS-yada tani available inoo yihiin oo la heli karo waxa kale oo faa'iido ah inaysan wax lacag goosanayn kaarka marka wax ku iibsanaysid waxba ka go'ay maayaan waa free of charge hadda waxaan galaynaa adeegii labaad oo aan maanta halka ku daafuraynay oo ah voice recognition ama voice ID adeega voice ID saad labada soconaba waxa weeyaan in qofka lagu aqoonsado codkiisa waxyaabo badan baa la isku aqoonsadaa qofka wajigiisa lagu aqoonsadaa indhaha lagu aqoonsadaa farta lagu aqoonsadaa maanta waxaan maraynaa in qofkii codkiisa lagu aqoonsado codkiisa hadduu oran uusan wax transaction u dhicin voice biometric wuxuu yahay waa in intii aan hadda sheegay way qofka in codkiisa lagu aqoonsado voice biometric markaan ka hadlayno waa artificial intelligence qayb kamid ah artificial intelligence marka la joogo anaga waxaan ka hadlaynaa qaybo badan buu leeyahay qaybta speaker recognition baa ka hadlaynaa oo macnaha qofkii hadlayay in la aqoonsado qayb emotion ku leeyahay qayb enrollment qaybo badan buu leeyahay applications badan ku xiran laakiin anaga qaybtan ka hadlayno maanta waa qaybta speaker recognition ka hadlaynaa marka la joogo linguistic bobsi baa la yiri waa bobsiinaya raalli ahaada waxyaabo badan baa laga yaabaa ka badboodo voice ID markaan kicinaynay waxaan ka soo maray wada dheer baan u maray runtii wuxuu nagu qaatay muddo sanad iyo 4 bilood sanad iyo 6 bilood ah caqabada ugu weyn oo na qabsatay waxay ahayd language-kana Soomaaliga iyo artificial intelligence-ga oo soqon waxay noqotay inaanu dad tiradoodu gaadhayso 300 oo qof oo kala jooga gobolada Puntland intooda badan ama gobolada dhamaantoodba
aanu cod ka duubno isugu jira rag iyo dumar si codkaas loo baro systemka inuu garan karo qofka markii hadalka la yiraahdo inuu saa u garto oo kelmadaha u barto waliba kelmada gaar ah la baro maadaama aysan luqadeena ku jirin luqada caalamiga ah ee turjuman ee dictionary-ga leh waxaan hawsha nagala shaqeeyay oo aad iyo aad dhinaca nagala taagnaa hay'adda care oo runtii aan halka uga mahad celinayno tiimkeeda qaybta humanitarianka ugu horeeya Siciid Caarshe waxay iyagana nala sameeyeen dhinacooda markii aan sameynaynay testingkaas in iyagana laftoodu ay dad keenaan banaanka ah oo aanu testigii ka qaadno oo codkoodii la duubo si systemka loo baro modeling language modeling marka sameynaysid oo systemka artificial intelligence la barayo waa in isagii la engage gareeyaa inuu luqadan hadhow marka lagu lahado fahmi karo okay intaas markii laga soo gudbo maxaan u isticmaalaynaa artificial voice ID maxaan u isticmaalaynaa horta waxa weeye waa no biometric device needed wax biometric device looma baahna mid farta la saaro mid waji lagu aadiyo mid kale looma baahna kaliya mobilka qofku sito niclaha ama nooc doono ahaado ayuu codkiisa ka soo oranaya laakiin uma baahna biometric device kale oo la daba joogo waxaan kaloo aan arinta ku dooranay inaan haysano network ugu fiican ee good network coverage inaan leenahay oo meel kasta laga heli karo ateenada shirkadda Somali language inuu yaqaano qofka u baahan inuu luqad kale ku hadlo special designer hadda qaybta hadda noo shaqeysa waxaan ugu talagalnay qaybta hay'adaha humanitarianka aan ugu talagalnay waxayna u shaqeysay si fiican waa very high technology adoption waa technology ugu dambeysay oo dadku la qabsanayaan fully integrated with MFS mobile financial systems ka shirkadda Golis sahal ayuu ku xiran yahay kullama qofku yiraahdo kelmadda sirtiisa ah automatically lacagtiisa mobilkiisa ugu jirtaa umana dhacayso hadii boqolkeena qof maanta mobile u dhiibo hadda aan challenge ku sameeyno ma keeni karta qofka la codahi ma jiro waayo waxay kala duwan yihiin qaabka waveska u dhacayaan iyo artificial intelligence sida uu qiimeynayo qof kasta codkiisa accuracy-ga codkuna 99.8% ayaan waxaan ku guuleysan inaan tijaabino featureskiisa muhiimka ah oo dhinaca security-ga maxaa kamid ah waa secure biometric authentication weeye waa codkaagii lagama xadi karo hadaa dhimatay waa la dhimatay hadaa hurudo waa la hurudaa cid ka xadaysa ma jirto waa multi factor authentication oo kaliya codka kuma aanan ekayn waxaan ku daray features area oo for example inaan lambarkaaga iyo codkaaga is yaqaanin codkaaga aan lambarka laga soo oran karin waa factor kamida authentication-ka waxaan kale ku darnay in cidii loo ogol yahay ma cid kale inay soo garaaci karin bokoorkaas hay'aduhu liistiyada oo soo gudbiyaan liistiyada kaliya loo furaa qof kale ma soo wici karo qofkii uu furnaana hadii uusan soo lambarkiisa ka soo hadlin ma la cid kale lacagtiis kuma qaadan karto partnership adeegaas waxa nagala ah oo aad noogala shaqeey runtii aan halka uga mahad celinayaa hay'adda GSMA oo runtii qayb weyn ka qaadatay waliba qaybteeda humanitarian inaan hawshan hirgasho iyo hay'adda care oo iyadana nagala shaqeysay ilaa iyo hadda 2022 December lacagta ku bixinayso beneficiaries lacagta ku siinaysi process-ku maro waa enrollment marka hore qofka in la diiwaan geliyo oo beneficiaries la helo white list loo sameeyo kadibna enrollment la sameeyo iyo in la sameeyo verification oo inuu short code soo garaaco verification la sameeyo qofka kii la rabay ma yahay kadibna payment-gi dhacdo automatically iyadoo aan u baahnayn wax human intervention ah process-aas waxay kala sahleen in process-kii dheeraa loo mari jiray registration haday tahay authentication bal la yareeyo halkii week ka qaadan jiray registration-ku oo qofka in meel loogu tago la soo registereeyo 1 minute lagu soo koobay gabigiisa mobile u dhiib codkaaga duub maca salaama marka dambe uu lacagta qaadanayana isagoon cidi aadin oo cidi la doonin message loo diro cod ah uu dhageysto maanta lacagtii baa xilligeeda waa la gaaray kadibna short-ki garaaco less than 1 minute ee qofkii lacagtiisa ugu dhacdo waxa halka ku save garoobay waqtigii cost-gii gali jiray hay'adaha wax badan baa halka lagu save gareeyay tawan ka boodaya challenges-kii hay'adaha ka haystay markii hore cash assistance-ga waa time consuming-ka intaan ka soo hadalna weeyay iyo resource badan inuu kaga lumi jiray what's next humanitarian-ka waa hadda waxbaan u sameynaa waxbaa u diyaarsan kuwa kale health care-ka education-ka government-ga NGO-yada kale dhamaantoodna insha Allah iyagana waxaan rajaynaynaa ayaan dhow ka faa'iideysan doonaan insha Allah taala adduunka inaan la soconno oo hore u soconaa rajaynaya aad iyo aad baa mahadsantahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.